Hallow dadweynaha ku xiran janaalka Sahanwade waad salaamantiin dhamaantiin walaalayaal waxaatiin dadkan har iyo habeen u taaganahay inaan u soo gudbino warbixinada xaqiiqada ku salaysan iyo dhacdooyinka caalamka iyo dhiirigelinta nafta adinkuna waa inaad waajibkiina gudataan janaalkana sii faafisaan fiidiyoogana like siisaan maantay waxaan idin soo gudbinayaa xaqiiqooyin ku saabsan magaalada ugu weyn wadankaasi Mareykanka ee New York waxaan filayaa inaad maqashay laakiin aadan warbixin ama xog aadan ka haysan New York waa magaalo ganacsi oo aad iyo aad u qurux badan kana mid ah magaalooyinka ugu dhaqaalaha badan dunida iyo wadankaasi Mareykanka dadka dunida ku nool badana waxay ku riyoodaan inay tagaan magaaladan sababtoo ah waa magaalo qof walba nolosha rajo ka leh ama raba inuu riyadiisa rumeeyo ku fiican inuu tago ama booqdo waa magaalo aad u weyn dadka ku nool New York ayaa waxay gaarayaan 8,650,000 oo qof waxaa looga hadlaa magaalada New York kaliya 800 oo luuqadood oo kala duwan sababtoo ah waxa ku nool shucuub kala duwan xagga dhaqanka xagga diinta iyo xagga luuqadaba kana kala yimid daafaha dunida waxaa ka mid ah dadka Shiineys, Faransiis, Raashiyaan iyo aqwaan kale oo Soomaali ku jirto Mareykanka wuxuu caan ku yahay cuntadan biisaha iyo hamburgerka magaaladii ugu horeysay oo Mareykan oo lagu sameeyay biisana waa New York magaaladan aad u jeedaan gudaheeda waxa lagu qabtaa shaqooyin kala duwan sida in lagu jilo aflaanta kala duwan sida Hindiga, Mareykanka, Shiineyska sababtoo ah waa magaalo soo jiidasho leh buundada Brooklyn Bridge ee ku taal magaalada New York waa mid ka mid ah buundooyinka caalamka ugu waaweyn waxay ka weyn tahay buundada ku taal magaalada London ee la dhaho Bridge London New York waa magaalada ay ku nool yihiin bilyaneerada ugu badan caalamka waxaa jirta magaalo ku haysata arrintan waana caasimadda wadanka Japan ee Tokyo New York gabi ahaanteedaba waxay ka kooban tahay 5 degmo oo waaweyn waana magaalada ay ku yaalaan hoteelada caalamka ugu qaalisan degmada Manhattan hoteelada iyo maqaayadaha ku yaal waxaa lagu kireystaa halkii habeen $4,000 Mareykanka ah bangiga dhexe ee magaalada New York waxaa lagu kaydiyaa dahabka ugu badan caalamka uguna quruxda badan dahabka lagu kaydiyo meeshaas ayaa wuxuu gaarayaa 7,000 oo tan wuxuuna u dhigmaa 5% dahabka dunida yaalla oo dhan New York waa magaalo mucjiso waana magaalada ugu badan oo ay muhaajiriinta wadamadooda ka soo qaxay degan yihiin dadkii ugu horeeyay ee Yurubiyaana ee daga magaalada New York waxay ahaayeen dadkan Dutch-ka la dhaho ama Hollandeeska ilaa 1898 magaaladan magaceeda waxa la dhihi jiray New Amsterdam sababtoo ah dadka ugu badan ee degan waxay ahaayeen iyaga markii dambe waxaa loo doortay magaaladan Suldaan isagana ka bedelay magacaas una bixiyay New York oo ilaa hadda loo yaqaan inaad yeerisaa hoonka baabuurkaaga adigoo soconaya wadooyinka magaalada New York waa arrin sharci darro ah waana lagu xirayaa maxaa yeelay hoonku wuxuu ka nixiyaa dadka agagaarkaaga marayo waxaana laga yaabaa inay shil galaan markii aad joogto magaalada New York inaad hoonka baabuurkaaga yeeriso waxaad fasax u qabtaa oo kaliya waqtiga aad emergency-ga ku jirto kaliya sida marka aad baabuurka ku wado qof xanuunsan ama qof dhaawaca meelaha cajaa'ibka ka dhigay magaaladan dalxiisayaal fara badanna soo jiitay indhahooda waxaa ka mid ah goobta la yiraahdo Times Square oo ah meel aad iyo aad u qurux badan waxaan filayaa inaad marar badan ku aragtay meeshan iyadoo lagu jilaayo filimaanta waana meelaha loogu jecel yahay dalkaasi Mareykanka waana dabaqyo ay ku xiran yihiin shaashado badan oo wax lagu xayisiinayo waana mid ka mid ah meelaha ka dhigay New York magaalo aad loo jecel yahay 10 saacadoodba hal saac ka mid ah ayuu 10 qof qaniinaa libaax badeedka ku nool xeebaha New York xeebaha New York waa kuwa ka mid ah xeebaha ugu qatarsan caalamka dadka guryaha ku leh magaalada New York waxay dawladda ka codsan karaan in guryahooda hortooda loogu beero 3 geed magaalada New York 15 saacadoodba waxaa ka daa baraf aad u fara badan waliba koonfurta South Pole magaalada New York waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1624 New York waxaa ku yaal daarihii mataanaha ahaa oo ay ka dhacday dhacdadii 11 September ee 2001 oo ay diyaaraduhu ku duqeeyeen gantaalada dhacdadaas ayaa waxaa lagu eedeeyay muslimiinta inay ka dambeeyeen weerarkaas New York waa magaalo taariikh leh oo qadiimi ah kana mid ah magaalooyinka ugu taariikhda dheer dunida waxaan filayaa wixii maanta ka dambeeyo inaad wax badan ka ogaatay xaqiiqooyin ku saabsan magaalada ugu weyn dalkaasi Mareykanka ee New York fadlan sii faafi warbixintan si ay u gaarto walaalahaaga u baahan inay wax ka ogaadaan mahadsanid walaal